بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. daawadayaal waa barnaamijkeenii marxaban yaa ramadaan ee aanu uga hadli jirnay axkaamta bisha barakaysan ee ramadaanka ah, axkaamta soomka iyo aadaabtiisa iyo akhlaaqdiisa iyo waxyaalaha la isaga baahan yahay, shuruuddiisa iyo waxyaalaha jebiye. iyo xalaqadii hore waxaanu uga hadlaynay waxyaalaha soomka jebiya. waxaanu idinka ballan qaadnay intiinii nala socotay inaan halkaa kasii wadi doono waqtigii oo nagu dhammaaday daraaddiis waxyaalaha soomka jebiya inaanu xalaqada soo socota uga hadalno ayaanu idiin ballan qaadnay. meeshii ayaan kasii wadaynaa insha allahu tacaala. waxyaala aanu sheegnay xalaqadii hore soomka jabiya waxaa kamid qofku si kas wax u cuno ama wax u cabo, ama uu maaragtay hadduu alla kuu ron yahay isku matajiyo, ama uu maaragtay hadduu alla kuu ron yahay uu isaga keeno maaragtay shahwadii uu isaga keeno si kasa intuu waxyaalo fiirsaday ama wax noocaasa. waxyaalahaas buriye waxaa kamid ah khuruuju damu alxijaama, qofku in uu maaragta istoobo oo dhiig uu iska maaragta keeno. xijaamadu waa toobinka wey. waxa weeye looma baahna oo nabigu sal allahu alay wasalam xadiid ayuu ku sheegay in uu afurayo midka wax toobay iyo kan toobaya labaduba. marka istoobiddu maaragtay soonka way jebisaa. waxaa lamid ah bay dhaheen culimmadu inuu qofku tabaruco dhiig inuu iska qaado. leanno waxaa la diidaya waxa weye qofkii soonkii inuu hadha u suurtoobi waayo intuu daciifo inuu u suurtoobi waayo. atabaruc bidam alkathiir iyaduna way jebisaa soomka. waxaan soonka jebin insha allah gadaal baan ka sheegi doonaa waxyaalahaan soonka jebin, maadaama tan xiriir leeda lakin waa iskasii sheegayaa in qofku irbad laga qaado waxyaalahan testiga ama taxliilka ah wax dhiba male. iyado saasoo kale in qofka dawo uu qaato wax dhiba male, irbad lagu mudo waxaasoo dhan ma jebiyaan. waxaa jebiya in qofku uu istoobo dhiig badan uu kasoo baxo, soomka waa jebiya. waxaa lamid ah inuu qofku dhiig tabaruco oo dhiig badan laga bixiyo, iyaduna waa lamid weeye maaragtay. alfitru ictimaada calى shaki fi quruubi ashams, qofku haddii uu ku afuro shaki isagoo uga jiro qoraxdii ma dhacday inse ma dhicin, uu afuro oo markaa ay caddaato inaysan qoraxdii dhicin, qofkaas waa afuray. maxaa yeelay alaslu baqaau nahaar bay dhaheen culimmadu. waxaa asal ahaa maalintii in lagu jiro, waxay ahayd inuu yaqiinsado ayay ahayd. waxaa cagsigeeda ah qofku haddii uu wax cuno isagoo shakisan, isagoo ka shaksan isleeyahay fajarkii ma soo baxay mise ma soo bixin markii la suxuuranayo, oo wax uu cuno oo isagoo shakisan, oo markaa kadib ay u caddaato waqtigii wax uu cunay inay ahayd mar hore in la adimayo fajarkii uu soo baxay ay u caddaato, wax dhiba ma laha. lianna alaslu baqaau alleyl ba ahaa, asalku wuxuu habeen buu ahaa. qofkaana wuxuu mooday inuu habeen ku jiro inkastoo shaki iska jiray. marka waxa weeye tan laakiin soonka jebisa waxa weeye qofkii iyadoo maalin ay ahayd isagoon hubsan wuxuu isleeyahy talow qoraxdii ma dhacday mise ma dhicin, waxbuu cunay qoraxdii mise weli godkii masigi halkaas kasii muuqataa, waxa weye qofkaas waa afuray, inuu soo qaleeya ayaan loo baahanya. waxyaala soonka buriya oo dembi weynna ah, kafaaraad iyo ganaax weynna la saaray, waxaa kamid ah qofku inuu jimaac sameeyo, jimaac fii nahaari ramadaan. jimaac waa galmada, qofkii xaaskiisii maaragtay xalaashaha inuu u galmoodo maalin ramadaan ah lama rabo. oo maaragtay dabcan mid xaaraamana walciyaadu billah de waa kasii daran tahay, waa dembi kaloo weyn oo faaxisha waay, kaa ka hadli mayno. waxaan ka hadlaynaa nin iyo xaaskiisa isqaba ma banaan tahay maalin ramadaan? ma banaana. ilahay wuxuu leeyay subxaana wa tacaala oo aayadda ku sheegay, aayaddii soonka aha uu ku sheegay, ilahay markuu sheegayey maaragtay fal'aana baashiruuhuna wabtaquu ma kataba allahu lakum wakuluu washrabuu. yani habeenkii maaragtay calima allahu anakum kuntum takhtaanuuna anfusakum fal'aana baashiruuhuna buu ilahay yihi. oo habeenkii, marka maalintii lama ogola maaragtay. walaa tubaashiruuhuna waantum caakifuuna fi lmasaajid. maaragtay marku qofku uu ku jiro ictikaafkana iyadana lama ogola. maalinta nahaarkaana iyadana lama ogola maaragtay jimaaca. ayib, qofka hadduu jimaaca xaaskiisii maalin ramadaan maxaa dhacaya? waxaa dhacaya kow, horta soomkii waa ka buri. labo, dembi weyn oo kabiiraaba ku dhacay. saddex, waxa weeye waxaa laga rabaa kafaara ku waajibaysa. kafaaradaas oo muqallada ah, aada loo adkeeyey. nin baa nabiga u yimid sal alla alay slam maalin ramadaan wuxuu yaa rasuulallah halagtu, waan halaagsamay,
nabigu wuxuu maxaa ku halaajiyey wuxuu yidhi xaaskaygii ayaan ku dhacay maalin ramadaana yacni waa u tegey xaaskaygii baan u tegey maalin ramadaana nabigu wuxuu yidhi sal allahu alay wasalam raqabo ma helaysaa xoreysid raqabo aa xoreysid yacni qof addoon aa xoreysid ma helaysaa wuxuu yidhi ma heli karo ma awoodo nabigu wuxuu yidhi sal allahu alay wasalam shahrayn mutataabicayn soom buu yidhi markaasuu yaa rasuul ma awoodo maalin keliya bishii ramadaan baa adkeysan waaye markaasuu wuxuu yidhi sal allahu alay wasalam 60 miskiinan quudi 60 miskiin quudi ma awoodu yidhi faqiir baan ahay nebigu fariisu yidhi halkaa fariisu yidhi meel buu fariisay yidhi kadibna muddo kadib baa nebiga waxa loo keenay koosarad timir ah yacni timir ku jirta weel weyn oo ku jirta maaragtay dambiil weyn ku jirta ayaa loo keenay nebiga sal allahu alay wasalam markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi or sadaqaysa wey marka ninkii wuxuu yidhi nin wuxuu iska maaragtay saxaabiga khayr allah siiye wax iga faqiirsanba maa bayna laabatayha afqar qof aniga faqiirsan oo madiino jooga oo familkayga ka faqiirsan ma jiro qaadaa la yidhi oo reerkaaga qoodi halkaa waxaa laga qaatay nebigu ninka wuxuu ku qariray markii uu yidhi halagtu inuu dembigaa dembi weyn oo qofka halaajinaya inuu yahay haddii uu qofka ku dhaco xaaskiis maalin ramadaan si kasta ugu dhaco ma u banaana waana waxaan banaanayn wey dabcan qofkii cudur awal u afuray isaga waa u banaan tahay oo waynu sheegi doonaa insha allah safar buu ahaa iyo wax noocaasa ama mariid buu ahaa taas ma ahan qof caafimaad qaba oo soomka uu ku waajibay awal baan horey uga soo hadalnay soomku cidda uu ku waajibo iyo shuruuddiisa awal baan horey uga soo hadalnay qofkii soomka uu ku waajibay cudurdaarna aan haysan maalin ramadaan ah inuu xaaskiisa u galmoodo waa xaaraan wey kafaaradaas aan soo sheegnayna haddii ninka iyo qofka dumarka labadoodu ay israbeen oo arrinka ay raalli isaga ahayeen ninkana waa laga rabaa qofka dumarkaana waa laga rabaa laakiin hadduu qofka dumarkaa uu khasbay badanaa maaragtay raggaa laga yaabaa inay dumarka ay usoo hiloobaan haddii uu khasbay oo maratay iyadoon raalli ka ahayn uu ku khasbay iyada waxba lagama rabo laakiin isaga wataan yidhi mukrah bay ahayd isaga laakiin waxaasoo dhan baa laga rabaa marka soomku wuu jebiyaa maaragtay waxyaalaha jebiya ugu waaweyn bal oo dunuubta waaweyn ayuu ku jiraa masaa'il badan oo farciya oo kutubta fiqiga ay sheegaan oo masalada raacsan ayaa ka jirto kafaaradii hadduu maalintii 2 jeer uu sameeyo ma 2 kafaaro u samaynaya iyo hadduu maalmo kala gedisan sameeyo maalin walba mugooni u sameeya mise bishoo dhan mid baa laga rabaa haddii inta uusan kafaarada samayn maalinta dhexdeeda uu 2 jeer iyo 3 jeer iyo sameeyo galmo hal kafaaraa laga rabaa laakiin haddii maalinta dhexdeeda intuu galmo sameeyey uu kafaaradii dhiibay oo markuu kafaaradii dhiibay haddana mar labaad ku dhacay haddana mid kalaa laga rabaa sidoo kale waxaa lamid ah kafaaradii maalin walba gooni bay kafaaradeeda u leedahay hadduu maanta ku dhacay kafaaradeeda laga raba hadduu beri ku dhaco kafaaradeeda laga raba wahaakada wallahu aclam marka arrimahaas waxa weeye waa arrimo khatar ah inuu qofku maalin ramadaan ah uu xaaskiisa u galmoodo siba dadka dhalinyarada ah iyo dadka arooska waqti dhow maaragtay arooska galay waa inay is ilaaliyaan weeye waxaa ka ratibmaya qofku maalin ramadaan hadduu xaaskiisa u galmoodo fasaadu soomkiisii oo fasaaday wujuubu alimsaaki baqiyata alyowm maalinta inta ka hartay oo uu maaragtay afkiisa haysto laanno maalinta ramadaanka xurmo ayay leedahay inkastoo soomkii ka jabay inuu wax cunuhu cabo looma ogola qadaa'u dalika alyowm maalinta inuu dib usoo qaleeyo alithm isagoo dembaabay iyo alkafaara kafaaradii aan soo sheegnay oo ahayd maaragtay cidqu raqaba hadduusan heli karin inuu maaragtay shahrayn mutataabicayn 2 bilood oo xiriira uu soomo hadduusan awoodinna 60 miskiinan inuu quudiyo ayaa laga rabaa arrimahaas oo dhan waxyaalaha soonka jabiye ayay ka mid yihiin waxaa baryahan aada naloo soo weydiiyaa ama culimmada la weydiiyaa ikhtibaar baan leeyahay wiilkii ama gabadhii ikhtibaar bay leedahay ma iska afuri kartaa ikhtibaaraat soom maaragtay ma ahan waxyaalaha qofka u baneeya inuu soomkiisa maaragtay uu afuro waxyaalaha u baneeya ma ahan qofkii u afura ikhtibaar baan leeyahayna dabcan waa qofkii soom ku waajibay oo u afura imtixaan baan leeyahay imtixaan baan gelaya ama qoraxda igu kul ama waqtiga igu dheer waxa weye dembi weyn buu galay qofkaas waxaana laga rabaa inuu soo qaleeyo ayaa laga rabaa tadkhiinka waxa loo yaqaan ama sigaarka waxa weeye soonka wuu buriya waana xaaraamna sidiisaba maxaa yeelay qofka maaragtay naftiisa ayuu wuxuu ku yahay halis ku yahay wax kasta oo qofka naftiisa iyo caqligiisa iyo maalkiisa iyo cirdigiisa halis gelinayana diinta islaamku way xarimtay oo waxaa la yidhaahdaa addaruuraat alkhamsa ayaa la yidhaahdaa addiinu
waa annafsu waalcaqlu waa almaalu waalcird. shantaas shay diimihii ilaahay samaawiga o dhan way ilaaliyeen. wax kasta oo dhib u geysanaya shantaas shayna waa xaaraan weye. sigaarkuna waxaan shaki ku jirin oo takhaadiirta muslim iyo gaalba ay caddeeyeen inuu qofka maaragtay sanbabadiisa uu halis geliyo, bal maskaxdiisa uu halis geliyo, dhibaatooyin badan oo caafimaadka inuu keeno. marka waana xaaraan. hadduu qofka cabana soomkaisuna waa fasaadiya. waxyaalaha soomka buriya waxaa ka mid ah in qofka lagu duro irbadda faleebaha la yidhaahdo, qofka cuntada siinaysa, booskii cuntadoo kale enerjiga siinaysa. irbadaas haddii qofka lagu duro badanaan xididkaa laga siiyaa, iyadana waxa weye soomkii wuu burayaa qofkii maaragtay in iyadana laga feejignaado ayaa loo baahan yahay. waxyaalahaas marka aanu soo sheegnay qofku inuu ilaahay ka cabsado subxaanahu wa tacaala, uu soomkiisa uu ilaaliyo. waxyaalaha maaragtay cuntadii iyo cabitaankii iyo jimaacii waxyaalahaas oo dhan inuu maaragtay iska ilaaliya ayaa loo baahan yahay. sida waxaa kaloo loo baahan yahay waxyaalaha waxaa jira aan soomka burin laakiin soomka ajarkiisa o dhan tirtire waa garaynaya. oo waxa weye qofki inuu fuxshi ku hadlo, dadka xanto, namiimo uu sameeyo, qiiba uu sameeyo, dadka isku diro, dadka uu wax ka sheego, hadal xun ku hadlo. nebigu waatuu yihi xadiiskii hadda ka hor baan sheegnay, qofkii aan ka tegin man lam yadac, qofkii aan ka tegin qowla zuuri waalcamali bihi, hadalka zuurku waa hadalka fuxshiga ee baatilka ah, iyo inuu ku camal falo iyo hadallo xun iyo falaysa lilaahi xaaja, ilaahay wax dan ah oo uu ka leeyahay min an yadaca طacaamahu wa sharaabahu ma jiro. ilahay subxana wa tacaala adaa is oomiyey maahane. yani waxa weeye qofkaas marka cinda aljamhuur waa jiraan daahiriyada iyo qolyale soomkiisa waa ka buray, laakiin cinda jamhuuri اlculamaa bima fihim alaima alarbaca, qofka hadduu been sheego ama dad xanto soomkiisii kama burin, laakiin ajar male, ajarkiibaa eber ka noqonaya. soomkana dee waxyaalahan u soomayn waxaa ka mid ah in ilaahay ajar badan aan ka helno, ilahay noogu dembi dhaafo. waataanu fadliga ka soo hadalnay hadda ka hor, fadliga uu leeyahay soomka guud ahaan, gaar ahaan bisha barakaysan ee ramadaan, fadliga ay leedahay. marka qofku inuu is ilaaliyo waxyaalaha soomkiisa burinaya inuu iska ilaaliyo. hadduu qof caayo ama qof soo ataago inuu yihahdo inii saa'im, waa soomanahay, inuusan u jawaabin. bishaan laana waa bishii waxyaala bishaan waxaa ka mid a waa shahru asabri wey, inuu ka sabro, inuu qofku isxakameeyo, inuu carada iska xakameeyo, inuu dadka u jawaabo iska xakameeyo. maxaa yeelay aym ama hadaf ka weyn ayuu leeyahay. ilahay waxaan ka baryayaa subxaana wa tacaala inuu noo xifdiyo soonkeenna, inuu ka dhigo soonkeenna mid ilaahay uu naga aqbalo subxaana wa tacaala, oo laga ilaaliyey wax kasta oo soonka buriya. ilaahay inuu naga xifdiyo baa ilaahay ka baryaynaa subxaana wa tacaala. xalaqadan maantay iyadana intaas ayaan kusoo koobaynaa. in sha allahu tacaala inta xalaqada dambe aynu ka kulmi doono, maca asalaama ayaan idinkaga tegey. wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.